بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن داوديال كسو دوادا برنامج كيني تحناها أها ee ku saabsanaa isbarbardhigga boqoradii hore iyo madaxweynayaasha maanta cali dool axmed cali qoryooley qoraaga weyn ee reer somalilan ayaa inoogu marti ahaa isla markaana barnaamijka qeyb weyn ka ahaa qeybtiisii lixaad ayaanu halkan idinku soo gudbin doonaa qeybta lixaad daawadayaal waxa ay ku saabsanaan doontaa isla markaana aynu ku dul istaagi doonaa madaxweynihii mingista xayle maryan iyo weliba boqor xayle salaase siyaabihii ay xilka ula kala wareegeen wakhtiyadii ay hayeen taariikhda xagga etoobiya iyo weliba cali kusoo dhawow barnaamijkeena yanaan kasoo hordhicin wuxuu ku saabsan yahay madaxweynaha mingista xayle maryan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. horta عمر waxaynu ka sheekeynayno waa dawladuna waa organization gaalada organization bay inagu laakiin markaynu oranayno waxaynu oranayno urur marka urur bulsheed weeyaan urur dadku leeyihiin marka ururadu waa la kala qaybiyaayo ururku marka hore qoys buu ka bilowdaa bilaadanka qof ka bilowda qoys buu tagaa dabeedna wuxuu tagaa qabiil dabeedna wuxuu tagaa qowmiyad dabeedna dawladdu waxay ku dhex jirtaa inta dhaxdooda marka dawladdu waxa weeyaan dadkii awoodahoodii isku keenay iyo ciidankoodii iyo lacagtoodii marka waxa la yiraahdaa dawladdu waa midi laba af leh waa awoodii dadka la ururiyay dhaqaale xoog maskax cilmiba marka labadeeda af ay leedahay afna waxba lagu goostaayo waa afka ay horumarka iyo inta loo qabto de lagu goosto maxay ahayd dhaqaalaha horumarka cilmiga haddii afkeedan kale xaggaaga soo xig aad iska hagaajin weydana adii laftaada ku goynay dawladii ha ayada waqtar bay leedahay ilaa waash awood siyaasad weyn awood weyn awood la sameeyay nuclear ima qolyahan samaystay gaalada wadamada nuclear uu ku aasan yahay nuclear-kii bay ka baqaan marka awood haddii meel mar haddii awood soo baxdo awood ciddii loo samaystay iyo ciddii iyo khatarteeduna way leedahay adoo iskaba haysto waa gartay qoriga qofka qoriga aakaga haysto maana caruurtiisa ka ilaaliyo waa inuu xafido ilaaliyo waa run marka dawladdu asnadii wixii la kala saaro midda meel dawladnimaduna waa awood caynkaas la ururiyay oo bilaadanka awoodiisa la ururiyay marka waxaynu ka sheekeynaynay boqoradii hore iyo madaxweynayaasha hadda isbarbardhigoodii mingista xayle maryan iyo marka soo wadaa marka horta waxaynu nidhi boqoradii hore iyo madaxweynayaasha hadda awoodda badan wax badan kuma kala duwaneen labada qodob ugu horeeyay wadaagaan waxa weeyaan madaxweynuhu boqorku wuxuu ahaa hogaamiyihii qaranka iyo hogaamiyihii dawladda labada arrimood dadka kala fahmaan hogaamiyihii ummadda dalka iyo hogaamiyihii dawladdu waa ururkan ka mid ah ee dadku ummadda ka shaqeynaya waa urur dawladda waxa la government organization ururka dawliga ah dawladdii oo u shaqeynaysa dadka waa hay'ad ka mid ah hay'adda ugu weyn hay'adaha waddanka awoodii dawliga ahayd iyo awoodii ummadday kala yihiin marka madaxweynayaasha hadda la yidhaahdo iyo boqoradii hore waxay ka masaysan yihiin waa mid walba waxa weeyaan hogaamiyihii ummadda ama hogaamiyihii dalka hogaamiyihii qaranka iyo hogaamiyihii dawladda markay taasi soo baxdo ayaa tusaale ahaan waxa weeyaan madaxweynayaashiinu u gudbayna boqorrada waynu garanaynaa boqorradu waxa weeyaan wax walba isagaa laha waa inaga deli dhulka dadka beeraha wax sidii aabihii uga dhintoo kale waana iska dhexli jireen cashuurtana dadka intay doonaan bay ku xukumi jireen saaxiibadood bayna dadka inta baarlamaan ma jiro doorasho ma jirto guurti ma jirto xisbiye ma jiraan waxa ma jiraan boqorkaasi talada boqorka iyo qoyskiisa say dadka ugu taliyaan u baajirto bas soconaysay taa waa boqoradii hore waa la wada garanayaa waa gartay oo tusaale ahaan xilli salaasa in yar ka sheekeynaya intaan mingista u gudbin xilli salaasa in 42 sano kow sano xukumayay ka horeeyay mingista 1933 buu qabsaday dabadeedna boqoradu eeg waa qof awoodii ummadda oo dhan haysto oo cid la xisaabtamaysa jirin oo baarlamaan la xisaabtamay jirin oo ilaahay mooyaan la xisaabtamay jirin dabeedna markaa dadku waad arki doontaan filimada qaar waad doonan doontaane markuu wadada soo maray xayla salaasi dadka shacabka ah way sujuudi jireen waxaad arkaysaa dadka wadada sujuud kula dhacayo hadda qof dadkii taagtaagana qaarna way sujuudeen dhulkii madaxa la dhacaya intay seexdaan qaarna way iska taagtaagan qaarna madaxa sidan leeyihiin markuu meel soo galo dadku intay wada istaagaan bay saa u sujuudiyeen marka xayla salaasi ninkaas u ahaa
nin aad u awood badan koob iyo 40 sano haysta 40 sano haysta asagana yar qabsaday Ethiopia haye dabadeedna waxa tusaale ahaan dhaqamadiisi bal dul istaag waa loo sheekeeyay boqoradu waxay jecel yihiin boqor Hayle Salaasi waxaa la yidhaha Tafara Mukannan baa isaga la oran jiray boqor magaciisa Hayle Salaasi waa magac markuu boqorka noqday la baxay laakiin magaciisa rasmiga ah Tafara Mukannan marka waxaa la yidhi boqoradii waa in horena uga sheekeeyeen laba sheeko yar halkan waan kusoo darayaa boqoradu waxay jecel yihiin ileen marka horta qofka awoodda dadka dhan loo dhiibo wax daba socdana jirin wuu caajisayaa wuxuu ku caajisayaa wixiiba dadkiina isaga ixtiraamaya asna wuxuu rabaa qosolkii iyo sheekadii wixii saaxiibnimadii oo caruurnimada u bartay awoodin wixii isaga soo ururaysa caruurnimada u bartay wuxuu dadkiina waa kuwan ka baqan isaga markay yimaadeen way heebadeen way is ururinayaan dabeedna isaga marka muxuu noqonayaa qof dadka iyo isagu bal hebel ha ii sheekeeyo iyo doona hebel ha ii sheekeeyo doona marka waxaa dhici jirtay la yidhi odayaasha ganacsatada iyo tijaartu way u tegi jireen wiigiiba maraa qaar iyagoo isbedelaya dabeedna way u sheekeynayaan qaar buu iska jeclaanaya inay ka qosliyaan qosol doon weeye ninkan isagu xisaabtan iyo wax kama baqanaye wax qosliyuu rabaa dabeedna waxaa la yidhi nin buu maalin buu yidhi warkii hebel bishan labadan toddobaad maan aray xaguu maray nin taajir oo magaalada oo guryaha waaweyn ku lahaa marka inta badanna dadka tujaarta waa eheladooda iyo saaxiibadoodu markaasaa la yidhi boqor miyaad ogtahay qaarkii kuwa la joogay baa ku dirayaa miyaad ogtahay wayada boqor af garan la-aan hayb ayaa lagu yidhi dabeedna markaasuu maxaa tiri markaasuu yidhi waxba boqoroo kaaga sheegmay ninkaas iminka ma aha nin innaga yani wayar af garan la-aan xataa wax buu sheegay lama odhan karo waayo muxuu sheegay ma odhanayaayo qofkana ka baqan wixii inuu boqorka cay ku noqoto oo uu ku caayo ma odhan karo boqorka ninkaas markaasuu yidhi habeenkii buu fikiray subaxii buu dowladda maayarkii magaalada Addis Ababa u yeedhay wuxuu ku yidhi waxaad yeelaysaa halkaa fooqaas weyn ninkaasi uu ku leeyahay dowladda u baahatay berito waa la duminayaa maxaa xafiiskii dowladda hoose halkaa aynu ka dhigaynay dowladda hoose ee Addis Ababa ayaynu halkaas dowladda hoose ka dhigan halkaasaa ku fiican marka cagafcagafyada kaxaysa dumiya ninkii hebelna dhulkaas iyo meel heblaayo meel iska fogday xaafaddu ugu bedela dhulka boqor ninkii baas wuxuu soo kala lahay tiyo cagafcagafyadii iyo wixii duminayay fooqiisa ag taagay main roadka ku yaala wadada ugu weyn Addis Ababa maxaa dhacay baa lagu yiri markaas boqorkii baa soo amray boqorku inta uu sidoo uu arki kari waayay gurigiisa baa la dumiyay waa meesha dowladda hoose ee Addis Ababa maanta ku taal ayaa gurigiisa ku ooli jiray gurigiisa baa la dumiyay markii gurigiisa la dumiyay ee uu arkay gurigiisa dhulkaas lagu bedelay dee chum ma oran karo ma caban karo boqorada agtooda cabasha ma taal ayaa la yiri war hebelow maxaa ku sabab noqdo boqorku kugu galay markaasuu yiri dihanaano baan eeday dihanaano macnaheedu waxa weeyaan inaan soo salaamo boqor oo nabad baa ilaaho ayaan laba weyn liiga waayo marka gurigaygaas wuxuu ku dumay dihanaano baa ayaan eeday marka ay awood caynkaas lahaayeen marka ninka awood caynkaas lahaa markuu qofku gaboobo waa kan iska sii daynaya maskaxdiisa baa ayaa iska dibacday marka boqoradaas iyagu ku dheeraan mayno tusaale ahaan waxaa kala jira boqor odhan jiray xukuumadda raga say doonaan waxaa la yidhaha caashaa tali absolute power waa la siduu doono u talinaya hebel hal la dila hadduu yidhaah wala soo dilay maxaa loo dilaa lama odhan isagaa maxkamadda isagaa baarlamaan awooddiiba isagaa wax walba isagaa talihii ciidanka awooddiiba isagaa kusoo ururtay dabeedna mingistaa inoo galo sheekooyin waan u geli doonaa sheekooyin laga sheegay waxaa ka mid ah nin la yiraahdo boqor xukun qaroosh bal oran jiro Cumaan inuu ka tali jiraan u maleynaya ninkaas ayaa waxa la yiri maalin bay u soo dacwoodeen qolo waxayna boqorow ninkan ninki ninba inanka yagi inan aan dhalay anigu oo meel jiifo ayuu nacaloosh kaga joogsaday inanka igu dhintay dabeedna markaas ninkii hala doono ninkii baa la keenay may qolo kala hadoo markaas boqorow inan aan dhalayo magaalada fooq hoos marayay ayaa nin intuu fooqi ka soo boodo dhabarka madaxa halkaa kaga dhacay buu dhabar ka jabay marka inanka iyagu waa paralyze mana dhiman mana noolo markaasuu yidhi ninkii waxaa sameeyey ma la helayaa hala soo qabsado waa loo yeedhay markaasuu waryaa nin inankan inuu dhalay ma ku joogsatay caloosha oo ma dhintay markaasuu haa boqor uu dhintay ninkan waxay sheegayaan marxuum baa buu yidhi inan ay dhaleen oo daar hoos maraya intaad soo boodid inuu dhabar madaxa halka kaga dhacdo dhabar ka jima jirtaa haa boqor way jirtaa
buu fikiray haddaba wuxuu istiri dee wuuba qartay ninkii ma dafarin markaasuu haddaba waxaad yeelaysaan waa idin kala xukumayaa buu dhegeysta qoladii inanka waxay anu boqora waxa iigu macnaa buu sababta dameer anu xaabadan guri jiray xaabadan quraa buu dameer baan xaabada magaalada ugu soo quraa dameerkaygu uu qooqnaa buu dameerkaygii qooqan ana dameerkayga oo casar caraabinayo waxaabada iigu raran tahay ayuu dameer orgoodsan arkay buu dameertii buu ku orday buu boqorow markuu dameertii ku orkay anna xaabadii ba iga saareed waan daba orday boqorow anoo daba ordayo asna dameertii eriyanayo ayaan inanka isla jiirnay buu marka anuu inanka mabaan arkayn buu dameerkaygu ma qabsi islaha saas ugu andacooday hade waana shay ahayd marka inankaasi markaan ilmo ku jiirsada gartaye dameerkaygu ma daba ordayay markii aan dameerkii daba ordayayna ninkii inankan dhalay oo ninkana ayaa intuu soo qaatay faas soo daba orday dameerkii waan ilaaway buu marka waan ka cararay ninkii aan uga cararay man fooq jaran baan arko jaran ka fuulay wuu iga soo daba fuulay buu boqorow markuu iga soo daba fuulay ayaan de ileen halkaas uga dhufanaya anna wax hub ma hayste waan booday buu inaan karo dhulka marayay ayaan dhabar hal madax kaga dhaco dhabarku ka jabay boqor xaaladdu isaasay marka boqor wuxuu yiri waxaad yeelaysaan xukunkeena wuxuu noqonayaa buu wax ka daba hadlaya ma jiro xukunkiisu waa kama dambays in ninkani inaanu dhalay oo caw ku jiifa haddaad aragtaan caloosha kaga joogsada buu ordidinku iska tagay waa ninkan inaanu dhalay eegta oo caloosha kaga joogsada ha dhintee haddaad aragtaan kulkan wuxuu ku yidhi ninkan oo fooq hoos maraya haddaad aragtaan ku soo booda oo dhabarka jabiya bal arrintaasi waa yahay bayna yidhaaheen hadal lagama soo celin kara waa boqorka xukunkiisii marka boqorradii hore taladoodu saasay ahayd halkaasi maraysa madaxweynayaasha hadda markaynu u nimaadno mingista xayla maryam waan geli doona horta madaxweynayaasha awoodahooda waa inaad fahantaan horta madaxweynayaasha imika awoodahooda madaxweynayaasha imika labay u qaybsamaan eeg waxaa jira boqorraduna labay u qaybsamaan boqortooyooyinku boqorrada dastuuriga oo aan nidhi waxaa weeyaan boqorrada dastuuriga ah oo ah boqorka hogaamiyihii ummad u weeyey waa boqorkii dastuuriga ahaa ee awoodda madaxweynaha oo kale male waa boqorkii dastuuriga ahaa ee awoodda maamuusan waxbaa la yidhahdaa hogaamiye sharafeed waa sida boqorada ingiriis oo kale iyo boqorka awoodaha badan oo kan xilli silaasay oo sheegaynaa madaxweynayaashuna waa sidoo kale madaxweynaha hogaamiye sharafeedka ah ee isagu hogaamiyihii ummadda ah iyo madaxweynaha hogaamiyihii ummaddana ah hogaamiyihii dowladdana ah ee kata waa labadeen marka hore kala saaran waa kala saarnaa hogaamiyihii ummaddana wuu yahay hogaamiyihii qarankee guud isla markaa hogaamiyihii dowladdana wuu yahay marka hogaamiyihii dowladduna waa awooddii isagu fulinta tii sharaftana cid kale oo u haysaa ma jirto kuwaas way horta kuwan awoodahooda galayno dowladaha nidaamka madaxtooyada ee madaxweynaha awoodaha badan madaxweynuhu wuxuu leeyahay awoodo xad dhaaf muwaadiniintuna ma haystaan xorriyaadka asaasiga ah madaxweynaha ayaa ah hogaamiyaha qaranka ahna astaantii midnimada ummadda madaxweynuhu waa astaantii midnimada ummadda oo dastuuraday ku qoran tahay asagaa ah astaanta la ilaalinayo waa waxa muusiga loo tumo Soomaaliya markii madaxweynuhu meel soo galaa muusiga la tumayo salaan sharafta la siinayo wali ma aragtay madaxweynaha intaan arkaynay cid ka sareyso salaan sharaf la siinay ma arag ma jirto asagaa salaan sharaf marka dastuur Soomaaliya way ku qoran tahay waa astaantii midnimada ummadda waa hogaamiyihii dowladda oo xukuumadii oo fulintii isaga fulintii leh dalka madaxweynaha mucaarad ma jiro mana jiraan xisbiyo siyaasadooda oo sharciyeysan waxaa jira silsilad isku xidhan oo ay leeyihiin dadka howlaha maamulka iyo siyaasadda ku lug leh oo kuwaas waxa weeyaan madaxweynuhu ku dhow yihiin muwaadiniintu siyaasadaha dowladda ma dhaliili karaan cadaadis iyo cagajugleyn badanna way saaran yihiin madaxweynihii markaa madaxweynayaasha hadda weeyaan waa madaxweynayaasha awoodaha badan ma aha madaxweynayaasha hogaamiye sharafeedka sida ka dadkeena nahno markaa kaasi waa tiisun boos madaxweynuhu wada oo kale waa boqorkii bulamidii badanka ma duwan laakiin waan sheegaynaa waxaa ka mid ah kuwa dastuuriga waxaa ka mid ah madaxweynaha hindiya madaxweynaha israa'iil madaxweynaha germany baa ka mid ah waan kusoo wadaa hadhow baan gaari doonaa awoodahooda haddaan tan la fahmin sheekooyinka lama fahmi karayo si buuxda uma qaaxna awoodaha madaxweynuhu mana degana siyaasadda dowladdu waxayna isla rogrogtaa rabitaanka madaxweynaha madaxweynuhu wuxuu marka uu doono uu la soo baxaa awoodo kala talisnimo qofka uu doono ayuu xabsiga geeyaa qofka uu doonana wuu cadaadiyaa oo si qarsoodi mararka qaar loo khaarijiyaa dadka oo waa siday samayn jireen madaxweynaha badan muwaadiniinta waxaa lagu sameeyaa maskax dil ama maskax guur muwaadiniinta madaxweynayaasha awoodaha badan waxay isleeyihiin haddii dadka fikirkooda loo fasaxo soo keeni maayaan shuruuc iyo shuruuc iyo xeerar adi awoodahaaga wax u dhimo
ayay oo ka hor imanaya marka daraasaad iyo xarumo cilmiyeed iyo waxaas oo dhan waa ka mamnuuc dalkiisa oo dadka marka dadku waxay iska noqonayaan dadka maskaxdoodiiba lagama shaqaysiin maskax guur waxa la yiraahdaa dadkii waxa laga dhigayaa brain drainage yani maskaxdii dadka lagama shaqaysiin waa la xidhaya dadkii doqomo kale laga soo qaadaya dadku waa inay doqomoobaan haddii fariida noqdaan ma shaqayn karaan waxaa lagu waxaa jira muwaadiniinta kacaandiidka ama dawladda ka soo horjeeda goobo lagu ciqaab ayaa la sameeyaa muwaadiniinta dawladda ka soo horjeeda haddii la doono waa la dilaa si qarshooda haddii la doono maxkamad baa loo sameeya maxkamaddii badbaadada la odhan jiray siyaad baraakiin dadka saari jiray la toogan jiray dalalkaas waxaa jirta aragti siyaasadeed oo ku dhisan in dawladdu ka muhiimsan tahay dadka iyo dalkaba madaxweynahana wuxuu awoodihiisa ku darsanayaa dawladda ka muhiimsan dalka iyo dadkaba okay madaxweynayaasha awoodaha badan waxay samaystaan hay-ado sirdoonoo fara badan hay-ada basaasiin iyo hay-ada sirdoonoo fara badan oo dadka usoo sheego wararkooda hebel baa sidan sheegay hebel baa sidan sheegay dabeedna dadku cabsi bay ku nool yihiin haddaanay cabsidaa ku noolaanin way furfurmayaan waa sida qadaafi samayn jiray wadganaysa isaga safarqiyaa sameeyo magistiya kusoo badan bay sameynayaan madaxweynayaasha hadda waxa weeyaan wadamada ay ka taliyaan bulshooyinkooda waxa ay kala qayqaybiyaan dadka oo waxay kala qayqaybinayaan haddii dadka isu yimaadaan oo awoodoodii is arkaan oo dad laga dhigo wada wanaagsan oo la wada jecel yahay dee way tashanayaan qabiilooyin iyo qowmiyadiyo xoolo yar qayqaybiyaan waa la qayqaybiyaa muwaadiniintu waxay ku khasban yihiin inay waxa dawladdu keento un taageeraan dhinaca awoodaha dhaqaalaha madaxweynaha hantida ummadda sida uu doono ayuu ugu tagrifalaa muwaadiniintu xor uma aha si cilmiyeysanna oo inay u hadlaan siyaasadda iska daa wax kastoo waxay ku xidhan yihiin ogolaanshaha madaxweynaha awoodaha badan iyaga ayaa xilka u magacaaba hanti dhowraha ninka hantida dhowrayay hanti dhowraha guud ee dawladda ee dadka la xisaabtami laha ee isaga la xisaabtami laha isagaa magacaabayo mar hadduu isagu magacaabana isagii lama xisaabtami karayo waxaan la idhaahdo dictatorship waa isku mid un madaxweyne awood badan iyo dictatorship waa isku mid ma kala duwana madaxweynayaasha awoodaha badan ee iminka aan labada jaga isku hayo hogaamiyihii qaranka iyo hogaamiyihii dawladdaba ah iyo kala taliya waa isku mid oo magac unbaa la yar kala siiyaaye iminkaba marka la doonana kala taliyaa la yidhaha marka la doonana hogaamiya waxaa la yidhahda madaxweynaha okay dhinaca dhaqaalahan wadnay soo ma ahayn iyaga ayaa xilka u magacaaba hanti dhowraha guud markaa ciddii uu doono unbu lala soo xisaabtama ciddii uu isagu doonay inaan la xisaabtan lama xisaabtamo madaxweynayaasha awoodaha badan waxay ku dadaalaan waxay sameeyaan dabaqad dhaqaale inay samaystaan bay ku dadaalaan ninkii waa madaxweyne wuxuu ka baqaya inuu dhaco asxaabtiisa dadka ay u jecel yihiin eheladiisa u dhaqaalihii dalka ku naas nuujinaya qandaraasyadii siinaya waxaan u siinaya cid xisaabtana mise lama jiraan dhowrin isagaa magacaabay dabadeedna waxaas waxay keenaysaa inuu wuxuu doonaya dadkan uu lacagta siiya shirkadaha badan yeeshay inay asaga xukunka ku ilaaliyaan wixii isagoo hoos yimaadaan wixii isagoo hoos yimaadaan weliba taas waa waxyaalaha ugu khatarsanay sameeyaan waxaa ka mid ah dabaqad dhaqaale dabaqadii xukunka haystay isaga iyo saaxiibadii bay noqdeen dabaqad dhaqaale oo idinka xukunka idinku ilaaliso samaysta taasi ma ku badan tahay madaxweynayaashan afrikaanka too much hayo wuu ku soo wadaa marka waxa weeyaan waxay samaystaan dad dabaqad dhaqaale dabeedna dabaqad dhaqaale samaynta ay sameey isleeyihiin maxay dhalaysaa musuqmaasuq bay kor u qaadaysaa cadaalad darradii bay kor u qaadaysaa dadkii oo maxay ahayd aan u sinayn khayraadka dalka ayay keenaysaa madaxweynayaasha awoodaha badan waxay ku mashquulaan asaasidda shirkado ganacsi ay saaxiibadood leeyihiin oo mulkigeedana lagu qoray dad kale ama caruurtiisuba leedahay waa isku mid un taastii hore lamid madaxweynayaasha awoodaha badan xafiisyadooda iyo agagaarkooda waxaa ku soo urura shakhsiyaadka shakhsiyaad dana gaara leh dadkii aqoonta lahaa iyo dadkii indhergaradka ahaa way ka fogaanayeen ninkani maba doonay dadkan marka waxaa soo ururayo dad ganacsigan yar ka rabo qandaraas ka doonayo waxaa ka doonayo iyo madaxweynayaasha kuyu u galo dadka kalena waxaa loo arkaa dad iska faquuqan marka dadka iska qaxaan waa tan la yidhaahdo aqoonyamada afrika yurub bay iska tagaan maraykanka u shaqo doontaan sababtoo ah halkan fursad ugama banaano oo madaxweynuhu mashquulsan yahayba kuwana hareero joogo oo aan meel ka maalimaha ka mid ah ayaan madaxweyne xukun ka dhacay ayaan meel ku kulanoo sheekaysan xukun meel waxaa sheegi maayey markaasaa nin baan soo qaadnay markaasu wuxuu igu yidhi anaa ku idhi madaxweyne aniga ninkan unbaa iga kaaf jooga inaan is aragno waan jeclaan lahaa markaasuu igu yidhi caliow waxa inta badan marka madaxweyne waa wuxuu yidhi waa maxbuus maamuusan maxbuus maamuusan waayo askari baa ilaaliya buu yidhi
askarigaasna dadka oo dhan buu ka ilaalinaya wana xidhan oo kale waa nin xidhan oo kale marka wuxuu yidhi waxa agtiisa ku badan dad badan aanu doonayn oo de mar walbana aan ka agtegayn dadkii uu doonayna ma arkayo iminka anugu marar badan baa adiku doonay buu yidhi laakiin kumaan arki karin buu yidhi waa bataanigii bay ku dhacday okay maxaa wadnay madaxweynayaasha awooba garsoorayaasha iyagaa magacaabo garsooraha maxkamadaha waxaa soo magacaaba madaxweynaha garsooraha degmada gobolka maxkamadda sare kuwii madaxweyne isagaa magacaabay guddida garsoorka guddiga wax walba isagaa magacaabay markuu intaa magacaabo garsoorayaashii laakiin maxkamaddii sare soo xilki hadduu sida wax u xukuma yidhaah u xukumi waayaan wuu ka qaadayn ku xusay laakiin maxkamaddii sare maxkamadda sare isagaa magacaabay isaga magacaaba madaxweynaha soo magacaaba laakiin maxkamaddii sare madaxweynaha laftigiisa iyadaa dhaarisa marka dambe ha dhaarso macnay leedahay inta u yeedhu dhaari odhanaya ninkan maxkamadda joogo haddii uu madaxweynuhu magacaabayo oo uu goorta doorashada ka qaadayo ninkii magacaabay maxkamad ma saari karo garsoorayaasha isagaa magacaabaan ku yidhi madaxweynaha awoodaha badan cilmi baadhisaha iyo daraasaadka ma ogolaadaan way cilmi baadhisaha iyo daraasaadka waxaa ka soo baxayo wax badan oo aan u baahnayn madaxweynayaasha awoodaha badan kama fikiraan يعني منهج وحبرشة وناس دكتور ما سميان منهج كوحبرشة ده وناس ردي دكتور سميان أقويها ما صبح أقويها ما ده وحي كينا يسبدل إنه يجي قبصان ما يسبدل سياسي كينا يجي بك قاضي ما يسبدل كي ما أقرأ ما أقوله تاس وننع تعليم ننع قصار ننع دقالها مفروض مي أوكي ما حويناش أودها بدن وحي مشارف عن مبحيان صرت مشارف عن مبحيان وحويان مشاركة في عند العكس أنا أسأل أنا كيف تقرأ في الدوري هدو ما خطتك العكس مشارف عن قرا وحويا وحيبان استبولي أنا ما أنا وياك بحنا هذا بدورية مرة كاسي واكاس أورت أودهم من حويناش إن لقى شيء كينيو إمك إنه من جست سؤال أسوأ قادنا إنه وقوة مرة هذا هالكاس إمك برنامج إنه كل شيء إنه هذه هذا حسن تحي قرا علي دول أحمد علي قريولي برنامجكو وبرنامجكي إسبربر دقة بقردي هره iyo weliba sidoo kale madaxweynayaasha maanta awoodaha madaxweynayaasha ayuu barnaamijkani ku saabsanaa iyo siyaabaha madaxweynayaasha lagu tilmaamo kali talis marka aan Soomaalidu u taqaano madaxweynahaasi weeyaan marka wuxuu cali noo sharaxay sidii madaxweynayaashu ay labada madaxweynaha kala duwan madaxweynaha hogaamiyaha qaranka iyo hogaamiyaha dawladda iyo madaxweynaha hogaamiyaha dawladda labadaas isku haya labada jago aad iyo aad ayuu mahadsan yahay